السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا برنامج كوحنا كسو قادنا ورركي وجوا وينا سوكر حالة قبل كبر قد حق وضبض عن ذي كوه النوحة كبده مريكن كيحوتها أو ورركل الدون كقاضي براكيب مريسي هرمس إيو باب المندب حالة برق قد حق أو مركلة إركا قشي هذا تفاصيل كسابسون وررد مريكن كيحوتها أي كلا قاضين وعشو كلا ندين هنا باكستان ووفد هير سرا ودرتي مقالة طهران عاصمة إيران يقو هالكا وضا هذا الله كلا قادنا يا مسؤولين تدالكاس وجدد سفركو محيطاي دنكا كلا باكستان وور رسمي كسو سارتي هالكا اي مريان وذا حاجوتكا لقدون يو إن هشيس ايكو قاران إيران يا باكستان قضبدا ساينو برنامج كينا لباد مانتو ترادا كسو قادنا انتان كجرنا وحي ورر soo kordha waan idin la socodsiin doona hadaba barnaamijka waxaynu idinku haynaa akhbaaraadkii iyo wararkii ugu waaweynaa ee soo dhacay intaynu kala maqnayn ugu horeyn waxaynu ku bilaabaynaa laba weerar oo kala duwan oo maraakiib nagta looga saaray ayaa waxay ka kala dhaceen goor dhaweyd Hormuz iyo Bab al-Mandab waxa yaab leh labada markab ee la ku kala weeraray labada dhinac waxaa weeraray mid Mareykanka midka kalena Xuutiga haddaba marka maraakiibtan maxay ahaayeen maxayse labada dhinac u kala weerareen haddaba tafaasiil ku saabsan sheekadaas ayaan idin hayaa haddaba waxaynu ka hormaraynaa wargeyska la yiraahdo Wall Street Journal ayaa goor dhaweyd qoray warbixin uu leeyahay ciidamada Mareykanku waxay sheegeen inay rasaas ku fureen oo ay weerar ku qaadeen markab la sheegay inuu isku dayayay inuu jabiyo xayiraadda Mareykanku ay ku soo rogeen Iran wargeyska Wall Street Journal wuxuu ka soo xigtay arintan mas'uul Mareykana dhanka kale waxaa la sheegayaa in ciidamada Mareykanku ay markaasi rasaas ku fureen haddaba safiinada ama markabkan ayaa wuxuu watay calanka Panama wuxuuna isku dayayay inuu markaasi khilaafo xayiraadda Mareykanka uu saaray dekadaha Iran iyadoo weerarkaasi uu dhacay goor dhaweyd maanta oo Talaada haddaba helicopter ciidamada Mareykanku ay leeyihiin ayaa la sheegay inay rasaas huwisay markabkaasi kaasoo ay sheegeen inuu iska dhaga tiray digniino ay ciidanka markii hore u direen meeshaas marka waxaa leeyahay markabay Mareykanku halkaa ku weerareen helicopteray u qaateen digniinteenu diideeleen marka sababta loo weeraray markabka muxuu yahay sababta Mareykanku markabka u weeraray markabku wuxuu iska dhaga tiray xayiraadii Mareykanku saaray dekadaha Iran wax kale dambi kale ma galin markabka kaliya wuxuu iska dhaga tiray oo uu rabay inuu tago dekadaha Iran Mareykanka warkiisu diiday taasa soo baxday Hormuz Iran marka ilaa hadda iyadu wax wara oo arika ay ka soo saartay ma jiro laakiin sheeko kale oo yaab leh oo jawaab amal u eg ayaa ka dhacday Bab al-Mandab Xuutiga iyaguna markab kale nagta ka saareen warkeenu diiday dekadaha Sacuudigu u socday meesha la isku ciyaaraa socoto wax meesha Mareykanka hadalkiisa la qaaday waa la bedelay bis asoo af Carabi ah la soo saaray asaga wuxuu yiri wuu iska dhaga tiray xayiraadii aan saarnay dekadaha Iran inuu jabiyo rabay Xuutiguna maxay leeyahay wuu iska dhaga tiray xayiraadii aan saarnay dekadaha Sacuudiga inuu jabiyo rabay nagtaa marka ka saarnay marka Mareykan ma dhihi karaa Xuutigu marka waxa tahay burcad badeed tuuga tahay sababta abba waa kana beesha isbaara ku taala markabkii soo mara nagta ka saaraysa anaga intee noo taala haddaba marka aan tuso sheekada iyadana ku saabsan waxa ka dhacay Bab al-Mandab iyo saacadihii la soo dhaafay haddaba wararkii ugu dambeeyay marka waxay sheegayaan in weerar uu ka dhacay Bab al-Mandab waxaana la sheegay in 4 qof oo la socday markab ay ku dhinteen
kadib markii xuutigu ay weerareen markab marayay baabal mandab. haddaba wasiir ka tirsan dowladda Yemen ayaa xaqiijiyay in 4 ka mid ah badmaaxiyiinta markabka la socday la weeraray ayaa halkaa ku dhintay, sidoo kale 4 kalena way ku dhaawacmeen. xuutiga oo weerar ku qaaday markab ganacsi oo marayay baabal mandab. weerarkan ayaa la sheegay in ay markaa 3 ka mid ah dadkii dhintay ay u dhasheen Pakistan, halka midka kale ee markabka ku dhintay uu isna u dhashay Indonesia. 4 qof ee xuutigu ay dileen 4taba waa dad muslimiin ah sida la leeyahay. xuutiga markabkii Sacuudiga warkiisa diiday Sacuudiga u socda oo meesha dekedaha Sacuudiga ka yimaada ama u socda nagtu ka saaraya asagan. hadda marka waxaa leeyahay xuutiga 4 u dilay asaga. Mareykanka wuxuu dilay malin soo sheegay, laakiin xuutiga 4 u dilay 3 Pakistan iyo mid Indonesia. marka 4ta uu dilayba waxay leeyihiin warbaahintu waa 4 qof oo muslimiina. xuutiga macnaha waxa uu samaynayo muslimiinu ku dhibaateynaya laga wadaa, Sacuudigu uu dhibaateynaya. marka xuuti waxaas asagu wuxuu leeyahay ma qorna anaga. Sacuudiga asagana soo ataagay, asagana gardaraystay, annagoo heshiis naga dhaxeeyo. diyaarad Iiraan nooga timid oo Sanca ku soo dagayso arqaladay garoonkii naga weerar. maxaa lacag markaa dhaana lama ogolo yiri wax diyaarada annaga aan ogolayn inay idin soo dagaan. ahlan saasmiya haye waa noo tala. sidaasaa marka dagaalkoodii horta ku bilowday. marka hadda warkaasaa marka isaguna la leeyahay xuutigu iyaguna markabkaas ayay nagta ka saareen oo ay garaaceen. marka sheekadaasu marka waa baabal mandab iyo Hormuz wixii ka dhacay goor dhaweyd ayaanu idiin soo gudbinay. wixii kaloo tafaasiil soo baxa barnaamijyadeeda kale aan ku soo qaadan doonaa. dhanka kale Pakistan wafdi heer sare u dirtay Tehran. maalmahan oo dhan barnaamijyada ka sheegaynay Pakistan waxay casuumaad u dirtay Caraaqji, Qaalibaaf, imaada Pakistan imaada. nimankii Iiraaniyiinta caga wareejis maba tagayaanba Pakistan. hadda Pakistan waxay soo dirtay wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha. waxay tiri ninkii Caraaqji waa noo iman waaye Tehran ku qabo. haddaba markaan idin soo wararkii ugu dambeeyay, Caraaqji oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan wuxuu wada hadallo la yeeshay wasiirka arrimaha gudaha Pakistan. kulankaasna wuxuu ka dhacay magaalada Tehran. wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa waxaa la sheegay inuu la kulmay ninka la yiraahdo Abbas Caraaqji, inuu la kulmay wasiir daakhiliyaha Pakistan Muhsin Naqwi. waxaana ay ku wada kulmeen Tehran iyagoo ka wada hadlayay arrimo muhiim ah oo ku saabsan wada xaajoodka wada hadallada. marka meesha waxaa ka jira warka Iiraan meelu saarayaan wuu cad yahay. nimanka ilaalada kacaanka Iiraan warkooda way sheegeen, waxay yiraahdeen shuruudaheena haddaanu Mareykan aqbalin meeshan yaa la isku daalin, waa noo xirnaanay Hormuz. waatan la lahaa Cumaan Iiraan heshiye miiskay saaran tahay. qadaraa tiri kanaa yiri ilaa hadda wax heshiisoo la gaaray maarteen marraadii shay waxaan Iiraan meel u yaalaan ba yeelayso ilaa waxeeda la ogolaado. Caraaqji marka muxuu samayn karaa? kaligiis inta Pakistan baxo muu heshiis iska geli karaa? may waa inuu raacaa amirta Mujtaba Khamenei in la raaco. Mujtaba Khamenei iyo ilaalada kacaanka Iiraan waa nimanka waddankaysta waay. marka nimankii Pakistaaniyiinta marka hadda waxay soo raadiyeen wada xaajoodka in la sii wado. waxaa leeyahay marka barashar ama culays Mareykanka uu soo saaray Pakistan waay. naga dhameeyo waxaa naga dhameeyay Pakistan ay ku soo Pakistanti marka waxay u yeertay Caraaqji iyo imaadeen dad way fahmeen marka inaan meesha waxba ka soo baxay. Mareykanna mowqifkiisa taagan yahay, Mujtabana mowqifkiisa taagan yahay. marka Caraaqji maxay ka qabanayaan meesha? hadda marka wafdigii Pakistan Tehran u yimid. dhanka kale waxaa isaguna waraysi bixiyay wasiirka gaashaandhigga ee Pakistan. marka ugu dambeyntii wasiirka gaashaandhigga ee Pakistan ayaa waraysi bixiyay. wuxuu leeyahay Pakistan waxay tiri Mareykanka iyo Iiraan waxay qarka u saaran yihiin inay markaasi
isku soo dhawaadaan oo heshiis ay wada gaaraan daa'ima. wasiirka difaaca Pakistan Nicolas Khawaja Asif wuxuu u waramay wakaaladda wararka ee Bloomberg ee waddanka Mareykanka. wuxuu siiyay waraysi maanta Talaada. wuxuu sheegay Mareykan iyo Iiraan inay aad isugu soo dhawaanayaan hadda oo ay ku dhow yihiin inay nooc tartiib ah ama isku dubaridida ay hadda ka heshiin doonaan dagaalka u dhaxeeya labadooda oo macnaha dagaalka uu dhamaan doono. waxaana uu rajo weyn ka muujiyay in hawshani ay dhamaan doonto maalmaha soo socda oo aadka u dhow in heshiis la isla gaari doono. warkaasina marka waxaa sheegaya ninka la yiraahdo wasiirka gaashaandhigga ee Pakistan. marka meeshan marka dadaal culus socda Pakistan iyo marka waxa leeyahay iyo Qatar way isqaybiyeen. Pakistan hawshan Mareykanka iyo Iiraan iyo inay maartay hawsha heshiis la gaaray culays ka saaraysa hadda wufuudeed diraysa wafdiye u soo dirtay halkan Qatar oo iyadana dhexdhexaadiyaasha ku jirta iyadana waxay sii wadaa Qatar wada hadalladii Oman iyo Iiraan u dhaxeeyay iyaduna halkaas ku mashquulsatay. hadda goordhoweed waxa arkay Qatar oo war soo saartay leh mar dhow heshiis iyaguna gaari rabaan Oman iyo Iiraan. marka waxa soo dhan waa iska huuhaa waaye Iiraan warkeedu waa cad yahay. shuruudayda yaal waa ku iman waa heshiinayna. shuruudayda maxaa ka mid ah Hormuz in looga haro lacag baada ka qaadato maraakiibta canshuura waxay rabto samayso isbuucida habayso. Mareykanna taas mar rabo waxa leeyahay waa jabtay waa laga adkaaday leeyahay. Iiraan oo waxba qaadayna u tagtay Iiraan oo lacag qaadayso taajira ka soo tagtay leeyahay dagaalka saasadu ku dhamaado. marka sheekooyinka warka way isku waasheen. barnaamijkeygii labaad waa naga taadi alla idmo wixii kale warar soo kordha barnaamijka kale ayaynu iskula socodsiin doonaa. inta aan mar kale kulmayno like gareeyo oo share gareeyo barnaamijka nabadgelyo.